markii sidan loo finjilo galeeyda waxay noqonaysaa sidan qofku wuxuu fursad ku heli karaa inuu u kala qaybiyo dhowr nooc inuu quraacda ka canjeero ka dhigto inuu muufo ka samaysto iyo inuu ka samaysto maxay yiraahdaa soor ama maxay yiraahdaa erika la jiray oo soor ah sidoo kale cambuulo waa laga samaystaa oo maasanta adeer sidoo markii intaas laga sameeyo kadib waxaa lagu shubaa jawaana halkaas yaalo jawaanada markii xaggaas la dhigo oo jawaanada laga buuxiyo waxaa loo iibgeeyaa suuqa السلام عليكم. السلام عليكم. شو كان دولسين وهاج برو. ما أنت واحد شوفنا مقالة أفقوي. ضدكم أنت بدر قام بنا إلى أدي قانون أفقوي ومقالة عامقوة حق بيرها في وقت وصلنا. إنك والله مركز يكتين waxaa iga jira dhul cagaaran dhulkaas cagaaran wax kale ma aha waa beerihii magaalada ka baxay waxaan jecel lahay beeraha beer kamid ah inaan booqano oo aan galno ama soo fiirino wixii nasiib ah uga yeelno inaan ka cuni karno hadday macquul tahayna aan ka iibsano marka aan wada socono ku soo dhawaada Afgooye. halkani waa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed waana magaalada saddexaad ee ugu weyn maamulka Koonfur Galbeed. joogna beer kamid ah beeraha aan soo booqanay ee magaalada Afgooye beertan waxaan ku soo aadnay ayadoo markaas dalagga la gurayo hadda waxaa diyaara galeeydi iyo oo galeeyda waxaa laga finjilay baalkii weynaay uu ku dhagnay oo halkaas tuuran isagana markii sidan loo finjilo galeeyda waxay noqonaysaa sidan qofku wuxuu fursad ku heli karaa inuu u kala qaybiyo dhowr nooc inuu quraacda ka canjeero ka dhigto inuu muufo ka samaysto inuu ka samaysto maxay yiraahdaa soor ama maxay yiraahdaa erika la jiray oo soor ah sidoo kale cambuulo waa laga samaystaa oo maasanta adeer sidoo markii intaas laga sameeyo kadib waxaa lagu shubaa jawaana halkaas yaalo jawaanada markii xaggaas la dhigo oo jawaanada laga buuxiyo waxaa loo iibgeeyaa suuqa marka intaas oo process soo martaa beertan waa beeraha ugu horeeya magaalada inkastoo waqtiga munaasabka ah aanan imaanin waxaan jecelnahay qaybaha kale oo beerta inay tuso marka samada qaybtan waa isla qayb kale oo kamid ah beerta maxaa yeelay beer walbo oo meeshan ku taalo magaaladan ku taalo
waxay leedahay ceel u gooni ah sidoo kale waxa yaab kale waxay tahay ceel walbaba waxa is leedahay biyaha dhadhankiisa waa sidii xareed iyo biyaha la warshadeeyo kale ceelka waka meel fog kuma yaalo waa kana labada tiir loo sameeyay si wadaanta loogu xiro waa kuwa waan cabay oo kulku noqday waxaan jeclahay inaad tuso ceelka waa kana waxaan isku dayaynaa inaan biyo soo darsan sida u jeedin biyahan waxay u moodaa nadiif inay yihiin qof walba uu dareemaa waa biyo aad u nadiif badan waxaan jecel lahay marka waxaan jecel lahay inaan gacmaha ku nadiifsano sidoo kalena aan dhadhamino biyaha dhadhankiisa siduu yahay biyaha waa nadiif waa sidii muraayadii oo kale oo wax la iska arkayo marka ma sha Allah waxaan jeclahay qalabkan inay taqaaniin qalabkan laba si baa loo isticmaalaa koow in beeraha lagu waraabiyo sidoo kalena beeraha looga dila cayayaanka waxa lagu shubaa kiimikaad si bahalada beeraha dhibaato oo rafaadiyo loogu dilo sidoo kalena ayadana waxa lagu sameeyaa oo lagu waraabiyaa beeraha marka waa qalab muhiim u ah isku dhawaada inay jiraan dad maqlay kili wax leeyahay kili waxa la yiraahdaa luuq yar ama jeex yar oo laga soo lubiyada si loogu waraabisto beeraha kili hadaad maqashiin waa kala qofka kiliga sidaan u weeyaa waa jeexas yar waxa loogu talagalay biyaha inay soo galaan si loogu waraabsado beeraha waxa loo yaqaanaa kili beerleyda magaalada joogtid waxa loo yaqaanaa adiga noo sheeg commentiga hoose noo sheeg